الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد يقول الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ولا لي الإله بام هذا إسكاله سبحانه وتعالى إلهي بانكم مهدنينا إن شاء الله إن مجلس كان وحواي هرتوا مجلس آد أقيم بدن أو ناكسن دد وحا اسكو يمت أو ولا لا أو اسجعل أو اسكو قرب مرك إن شاء الله تعالى إلهي وحان كبرينا سيدا مجلس كان أو كلني إلهي إنه كلنسيو في الفردوس الأعلى من الجنة إن شاء الله مركا وحان إذنكو بشارينا إن شاء الله سيدو حبيب كينا نوغو بشاري حديثكي صحيح أها مجلس كانوا كالي دادك مركي اسكوغو إمادان ملائك باوريكته ملائك تاس حلق الذكر ميله إلهي اللو حسايو أيي booqataaho markay meel ilaahay majlis ilaahay lagu xusay ee aragto majliskaas ayay ka qayb gashaa xabiibkeen wuxuu yiri salawaatu rabbi wa salaamuhu alayhi waxa soo degaya majaalistaas oo kale sakiina xasilooni waxa soo degayo kale raxmadda ilaahay waxa daboolayo raxmadda ilaahay baa dabooleys waqashiyatuhum arrahma مجلس كاس دمات كيسا رسولك وحوله صلوات ربي وسلامه عليه دد كاس وقوم دد كي لفرديستو أنا نصيب درسنين فهم قوم لا يشقى بهم جليسهم مركز ملائكتي أيا وحي ذا إلهي ودد قفو حاكو جري niyadiisu ayna ahayn dadkaas kale isku niyad aysan ahayn dad kale waxa u yimid fulaan inuu soo booqdo inuu la hadlo Allah subhanahu wa ta'ala wuxuu leeyahay dadkaas qofkii la fadhiisto ma nasiib darsado xadiis kale macnihiisu wuxuu ahaa in lagu leeyahay markay ka istaagayaan qumu maghfuran lakum qad buddila sayyi'atukum ila hasanat istaaga adinkoo la idin dambi dhaafay xumaantiina lagu bedelay dambi dhaaf ilaahay waxaan ka baryaynaa subhanahu wa ta'ala dadkaas oo ilaahay tilmaamay inuu ilaahay naga dhigo majliskan inuu ilaahay nagu daro dadka loogu dambi dhaafayo inuu ilaahay naga dhigo insha Allah ta'ala marka walaalayaal waxa soo dhow bishii barakeysneed maalmo ayaa naga xigta marka waxa loo baahan yahay qof walba naga mid ah inuu u diyaar garoobo wanaagoo dhan inuu u diyaar garooba loo baahan yahay waxa lagu soo dhaweynaa inuu qofku ilaahay u laabto ilaahay u tooba keeno waxa kale oo jiro aan baraarujina maadaama waqti fiican aan haysanin dad walaale ah oo waxa jiro masaakiin ah waxay ku anfuraan la aan haysanin maadaama ilaahay annaga oo noo nimceeyay dadkeena kale walaalaheena ah oo islaamka ah oo Soomaalida kale ah waxaa kamid ah dan aan waxba aan haysanin anfur aan haysanin hoy aan haysanin marka insha Allah ta'ala qof walba wax awoodo jeebkaada ka bixi walaalkaaga si anfuran si adduunyo aakhir waa kulli baanaysa marka insha Allah ta'ala halkaas aan ku soo gabagabeynaa ilaahay waxaan ka baryaynaa subhanahu wa ta'ala inuu noo dambi dhaafo ilaahay waxaan ka baryaynaa bisha ramadaanka inuu ilaahay nabad nagu gaarsiiyo إلهي وحان كبرينا قلوبتين إنه إلهي جعلنا سكي قليو وحيابها دحذين يالنا إنه إلهي كدح بحي إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله كل عاو ماشان أرنتاس وقي معني وأريمكو صابساناي وحي عن سنة كان سو سميني سبورتيغا محو هاي مقالة كو صابساناي marka maadaama hadda bil Ramadan tahay muddadii aan dheelaynay macnaha naga soo dhamaatay marka safar badan ay nagu aan galnay
safaro badan hadda inagu soo wajahayn bacda Ramadaan marka caaw waxaan isugu imaanay in is xog wareysano qaabkii aan ku bixi lahayn iyo qaabkii maxay ahayd aan u taabashaysan lahayn marka waxaan rajeynayaa insha Allah in kulankeena caaw si fiican ugu dhamaaday oo si qurux badan ugu soo dhamaaday marka waxaan soo mahad celinayaa dadkan walaalaheena caaw ayagana soo booqday oo kamid yahay xogaha safaaradda walaalkeen Barqad oo juhdi badan ugu bixiyay inuu noo imaado caaw marka waxaan leeyahay insha Allah intaan in ka badan insha Allah waa sameyn doonaa marka waxaan leeyahay halkaas ku soo gabagabeynaa insha Allah maastiin assalamu alaykum bismillaahir rahmaanir rahiim saad ogtihiin winterka soo xirnay winterkan laba mar aan baxnay marna waxa aadnay Austria marna waxa aadnay Frankfurt inta bas nidaam ay noogu soo dhamaadeen oo aad iyo aad u fiican ciyaar wanaagsan aan soo gudbinay oo dadkana jecelaysteen ciyaaraha aan soo gudbinay dalab badan oo noo yimid oo aan yani kooxaha kale aan u baxno marka hadda waxa isku diyaarinaynaa samarka marka 3 safar aan ugu soo wajahan hadda ila raali ka noqdo safar oo ah Holland safar oo ah Belgiumka safar oo ah Turkiga safarka Holland haddaan ka warbixiyo waxaan jeclahay hadduu ilaa raali ka noqdo ciid kadib 2 isbuuc kadib inaan xagga aan tagno ti Belgiumkana waxa way 4 geesood ay rabaan ayagan ka warsugoona 4 geesoodka xilliga ay balaminayaan marka tan oo Turkiga ku soo hartay waxa rabnaa inaan ku soo xirno seasonka kooxda waxay kale oo leedahay website kala hadda qorshaheeda waa lagu jiraa dhameystirayra u dhiman hal saacad oo qadka ku jiray halkaas saacna koox aad iyo aad u badan soo dalbatay koox ka saa ognahay waxay leedahay yani maxallaha website u qaas ah marka anagana insha Allah sanadkan waxa soo gabagabeynaa in oo website-keena oo caadi hawada u soo galo marka kulanka caawa ma sha Allah aad iyo aad يعني dadka oo imaaday u soo dhaweynayna wayna ku maadsan yihiin billahi tawfiq bismillaahir rahmaanir rahiim dhamaantiin oo salaamantiin salaant boqolta miyaa far salaam alaykum warahmatullahi wabarakatuh salaan kadib ilaahay mahad iska leh horta intaan soo gaarsiiyay waxa kale oo mahad iska leh gudiga sharafta leh oo intaan isku duubni ku soo gaaray inta kadib waxa u maleynaa labo isbuuc noo dhiman inaan hoolka ku dheelno insha Allah isbuucan soo socday isbuuc ka xigo ka bacdi hoolka 1 bish Abriil oo ku eg yahay sida warqada ku qoran marka Ramadaankan gudiga wuxuu gartay inaan iska nasano labadaas isbuuc ka bacdi ina iska nasano aan ciid ka bacdi safaradan walaalkeen qadar noo soo diyaariyay markay naga soo dhamaadaan ka bacdi waxaan soo helnay garoon weyn Ishfaab Guud ninkii yaqaani ninkii kalaba Shul House Ishfaab Guud waxa way Alima agteeda ninkii yaqaano marka insha Allah markaan Holland ka soo noqono waxaan rajeynayaa insha Allah inaan meeshaas aan ku dheeli doono anagoo wada dhan waxa kale oo mahad iska leh walaalkeen Ismaaciil oo macna arintan garoonka qayb igala qaatay soo dhameynteedii marka ilaahay naam garab uu nagu siiyay insha Allah taala waana ku guuleysanay marka insha Allah arintan Cabdinaasir ka dhawaajiyay oo ah lacag in la iska aruuriyo kolbo asagana hadda waxa umleynaa inuu gudiga u soo jeediyay iyo arintan Cabdiraxmaan insha Allah gudiga ka wada hadli doono gudigan ka fariisanayo wixii markaas warbixin ay soo baxdan insha Allah taala gudiga ayaa idin soo wadaagi doona insha Allah السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. هرتا ما أنت ماشان أن أسكو وذا إيمانه هرتا خير وين واي هذا هو فرحتي فعلا
qof walba wuxuu keenay waxaan si fiican u hagaajiseen halka garoonka si fiican oo aad u toosiseen dadka ka shaqeeyay gudiyada horta maasha Allah khayr ilaa idan wada siiyo beern wiligeeda saan wax kama dhicin inaan isku imaano oo garab aan isku siino kolka aad iyo aad ugu faraxsanahay waxaan rajeynaa sidaan si ka fiican inaan kor aan u kacno oo isku gacan aan wada noqono teeda kale safaaradda Soomaaliya way noo joogtaa oo garabna siinayso Sheekh Barqad maasha Allah guddooyaha kulligiina waxa dad dadaalayaan oo aad tihiin waxaan rajeynaa in saan si ka fiican kolka waxa loo baahan yahay systemka aad ku socotiin ina mar walba aad wax ka sii bedeshiin qadar wuxuu sheegay maasha Allah in dhar iyo alaab iyo wax kasto in la hagaajiyo maadaama oo xaalka oo saan oo ku socdo dan waxa waaye qarash loo baahan yahay Nasir wuxuu soo jeediyay fikrad in lacag la iska aruuriyo lacagta la iska aruurinayo horta qasab i waayba in wax la wada bixiyo qof walba maadaama aan safreyno maadaama aan garooman aan u baahanahay oo qarash la bixinayo dan anaga inaan wada qabano ma aha qaar dadkooda dhaxdiina gudiyada inay iska aruuriyaan inta kale wax ay bixinin yani 10 ma aha 20 inaad ka dhigtaan qof walba isku wada hal ama in maxaydaan ama 10 ama 20 inuu ahaado teeda kalena meesha qaanuun dastuura ka jiro inaad qorateen aan maqlay aniga wax kama ogi laakiin in wax walbo si oo open in loo maxaydaan loo soo wada dhigo waraaqooyinka lacagta sidee ku wada baxday sidee ku noqotay waa taas wax oo xaq loo wada leeyahay dadka dhan ma aha meega macnaheedu in aan idin aaminaynin ama waxa ma fahamtay wax kasta oo la tilaabo kasta la qaadayo in wuxuu ku baxay marka qof walba inaan wada ogaano qof walba shaqadiisa maxay tahay waa taasna wax oo muhiim ah information ka oo WhatsApp group kana waa wax fiican information ka meesha aad soo dhaxdhigaysiin waa program oo aad u fiican oo la ogaanayo dheel maalinta jirto waxa oo la qabtay saddexdii bil hal jeer insaan loo fadhiisto oo maxaa raashinko yar la keensado hatta qasab cabitaan wala cabi kara in aan ogaano siday wax u baxeen meeqa la haaya qasnada ay ku jirtaa iyo waxa markaas waxaan arkaynaa in wixii horumar fiican ay u sii socoto ma fahamtay kolka ma hadsantihiin khayr ilaa idan wada siiyo dhinacayga aniga aad iyo aad ugu mahadsantihiin jazaakumullahu khayr dhamaantiin waa salaamantiin walaalahayga waa mahadsantihiin qabanqaabadii wixii dhammaan ragiga horeeya ka hadlay kulligiin waa mahadsantihiin wax aad u fiican aan sameynayna bariyahan wax waliba wuxuu ku fiican yihiin bil kadib in la ogaado wixii naga soo qaldamay iyo wixii noo hagaagay inaan isku sheegno waxyaabo badan garoonka way nooga dhacaan qof walba bini'aadan qalad uu galaa horta laakiin waxaan aniga guddiga kula talin lahay maadaama guddiga maalin waliba garoonka dhex joogaan ayaga wixii qalad dhaca isla markaas inay go'aan ka soo saaraan ama isla markaas qofka ay runta u sheegaan in la isku qabsado garoonka dhexdiisa inaysan mar kale dhicin isbuucii hore la soo dhaafay waxaa la isku qabsanaya arbitro waa qabanay dadka guddiga ka mid wax ma kala ogaan dhamaantooda inaad horta idinkii wax isku sheegtiin sida wax meesha uga socdaan ninka idin ka mid sida Ismaaciil saaxiibkay oo kale daraad waa xanaaq waa ogeedeen waxyaabahaas oo kale isla garoonka in wax looga qabto markii idinka wax la idin weydin aadin dhaano saan xaal maaha ina saanna dhahdin maaha waxaan idin rajeynaa inaad taasna wax ka bedeli doontiin waqti walbana waxaan rajeynaa dadka walaalahayga oo garoonkaas isku leeyahay inay isdejiyaan wanaag lagu ciyaaro meeshaas wax loo imaado waxa waaye 3 saacadood aan sarkoona 3 saacadoodna inay qayl iyo buuq nooga dhamaato laga fiican yahay aadaabta garoonka ilaalin insha Allah والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا أصحاب هالكان يسوق تمد ويسوق جيران دلنيرة عصلاتي iyo dalinyarada ayagana wadada ku soo jiraan waxaan horta idinkaga mahad celinayaa barnaamijkan quruxda badan ay noo soo diyaariyeen guddiga ka kooban 5 qof aad iyo aad u mahadsantihiin kulankan iyo kulamadii ka horeeyay iyo wanaagii iyo aan la jeceshihiin waan iga aqbalna marka koowaad sidoo kale kulankan waxa ugu faa'iideysanayaa dhowr qodob oo ay ka mid tahay
inkastoo wax badan oo dadkii xog ogaalku ahaa ka hadleen aan rabin inaan ku noqnoqdo kaliya waxa xoojinayaa marka kulanka la dheelaayo aad u badanna markii safar la aadayna aad u yarna marka qofkii hoosta ka xariiqay inuu baxaayo waxaan jeclaan lahaa inuu ka dhabeeyo inuu baxo oo wax kasta oo keeni karo gadaal u socodna oo meesha ka saaro qodobka labaad waxa waaye waxaan kaloo aad ugu faraxsanahay asxaab waxaan ku bartay magaaladan Beerna aad u qiimo badan isku duuban banooni wada dheelaayo Soomaali isugu wada jiraan dhamaantood haddana wanaag ku wada joogo waxaan rajeynayaa ilaahayna maaragtay aan ka rajeynaynaa in aan sidaas isi ka wanaagsan aan ku sii wada soconno sidoo kale aad iyo aad ugu faraxsanaan lahaa inaan magaaladan deganaado laakiin ma suurtagalin maalin kastana waan imaan doonaa insha Allah meel dheer aan ka imid safaradii la dhahayay waa la baxaana waxa aan ugu soo darsamay waxa waaye xagga la jiro mis inta la jiray inaan Jeneefan ni balamiyo oo aad tagi doontiin ayaga ni imaan doonaan insha Allah bidna kariim ugu dambeyntii cuntadan iyo protocolka nidaamka ah cidii soo qaban qaabisan oo ugu mahad celina sidoo kale garabkayga waxa fadhiyo gudoomiyaha Beerna xagga sportiga walaalkay Daadir asagana waxa rajeynaynaa inaan soo wada dhaweeyno wabillahi tawfiiq assalamu alaykum warahmatullahi السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخيارت الأمان ومحاسنتين كسو قيب قلكينا قارهان قدق قابضة وأقوم هاد علنينا حفلة قيمة لإنو صميين عشادة وناكسن سودويت وناكسن آدي ومحسنين وحرجينا إن نوقع العلي دوران إن شاء الله تعالى ما كتاسي تاسا نقول بايا مدى كلا وقت الحلي قبوبة هذا الصور دافي وحال صومري waxyaabo badan la sameeyay oo horumar ah marka wadan badan la aaday oo Jarmalkiisa hadda loo sheegay iyo Austria ay kamid yihiin waxaan rajaynaynaa inay ka sii badi doonaan oo dhamaanteen aan u diyaar garoobi doono anigana waxaan personally diyaar u ahay inaan hogaamiyo dadka baxay ciyaartooyda iyo kulli diyaarana inaan wax ka baxo insha Allah taala sida horeba aan bal qaaday marka insha Allah waad raaci doonaa diila yiraahdo waqtiga la gaaro mid kale waxaan rabaa inaan fursada uga faa'iideysto hal shay inaan idin sheegaan rabaa oo ah khilaafka sidiisaba faa'iido ma leh khilaaf wuxuu keenaa kala daadsanaan wuxuu keenaa in xoog kala daato wuxuu keenaa in dadka ay group noqdaan Beerna wada degannahay sportska waa hal meel aan wadno hal groupna aan noqono hal meelna aan ka wadno sportska magaaladan hal albaab waa inuu yeeshaa marka waa in arintaas aan maartay ka qayb qaadanaa oo khilaafka la yareeyaa oo qofka sabab booskiisa oo qaataa waxaan diyaar u ahay in wax kasta oo khilaafkaas uu ku baabaayo in gacan ka geysto marka waxaan rabaa sida hadda naga muuqato quruxda naga muuqato iyo wanaaga aan ku fadhino rabadaanna waa noo dhalanaya waxaan rajaynayaa anagoo wada faraxsan oo qalbigeena nadiif wada yahay in rabadaankeena insha Allah taala ilaahay naga aqbalo kan kiisa kalena caafimaad nagu gaarsiiyo kan ilaahay noo dhib yareeyo waxaan kaloo ku zaa'idinayaa haddii la awoodana in dadka dhibaataysan ee Soomaalida walaalaheenana haddii aan wax iska qaadi karno waa awood u leenahay inaan gaarsiinana in arrinkaasna aan ku fikirno oo guddi loo saaro oo wixii tabarteena aan gaarsiino si iyaga loo afursiyo marka aad iyo aad u mahadsantihiin arrinta kale oo safarka ugu soo horeysay la ii sheegay qadar waxa u maleynaa Sweden inay noqon doonto Holland miya rabadaan ka bacdi marka safarkaasna insha Allah taala waxaan rajaynayaa guddiga inuu ka shaqeyn doono iyo dadka xiriirka la sameeyay dadkaas walaalaha ah marka in loo diyaar garoobo rabadaanka laftirkiisana habeenkii waa la ordi karaa in la sii ordo oo aan la isdhiganin oo rabadaanka dib la baxayo in aan soo kaliya lagu ekeen in la sii dadaalo marka insha Allah taala mid kale Cabdinaas hadda u sheegay waxa jiro nin guddiga kamida ama gudoomiyaha u ah dalka Sweden gaar ahaan magaalada Göteborg ama Gothenburg oo sports gudoomiye ka all the boys azumaadu noo fidiyay waqtiga aan ka dhiganayna idinka idinku xiran tahay diyaar u noo yahay in aadno Sweden Göteborg magaaladaas waan lagu soo dhaweynaa waan ka sugaa anigoona iga ballan qaaday inuu soo dhaweeyo
marka anaga nagu xirantahay kulli jadwalka waxaan rajaynayaa guddiga inuu noo sameeyo sida u kala horumarin lahayn gobolada wadamada aan kala aadi lahayn ugu soo horeeyo marka insha Allah taala waxaan idin rajaynayaa Ramadaan wanaagsan khayr iyo caafimaad aan idin rajaynaa aad iyo aad aan u mahadsantihiin. Assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.